السلام عليكم صباح وناكسن خيارت وان سلاني اني اي اسلا سocno gabdhaha ma salaami gabdhaha ay qof kasto oo nasr soo ku jiro aye salaan he waa salaam كيف حالكم وقتل طيبين salaam وسلامي ay maxaa leedahay السلام عليكم وسلام لما يدين بريسي وصور لغا كعدي السلام عليكم ولا شاكوش أنا كدني هذيك كل ما لو قضى ماي how are you you from Ethiopia الله يدسر هاي تري ما يوم مسرسين ساتر هو إذا مجوكتو سوري ويوم مسرسين كنت إلنا في ما تدي السلام عليكم أوه ما شاء الله how are you from Ethiopia ما شاء الله she's my grandmom she's not my mom yeah yeah she's my grandmom yeah she's crying why you maxaa uunaysaa ayayna maxaa waxay tiri maxaa iga masayirsiinay runteed waaye dantaa horta adiga ayay naga tagiyo akhi dadka dhan waa ka masayirsiinaysaa maadaam waa kas gabadha miskiinta waa ka xanaaqsiisay gabar waxay tiri iga masayirsiinaysaa ayay isla soconay markasta ayay soo socon dadka maxaynan ayada si fiican oo la socotaa waxay tiri waa iga masayirsiinaysaa ayay hooyaday ma joogtay tiri oo nacas هي كتك أنا سكت عيدا مسكين ما كمل والله marka ay maxaa ina jacayl ku tusii waay ma hayo ya مسكين وقبرته علاشا horsiya ها sorry ay asxaabta maxaa leedahay waalidiintiina والدينتي أساسوش على ذا كل يوينكيني هو أنا يدي واي dadka xumale hooyadeyna talak hooyaday kala waaya أيه أنا هو يدد قبر يرواي أنا أيه أنا حد أنت صعد أنا الله يوضطه الله يوضطه أبا يوضط ما تعرف أيه وأنا كذني أبحلو هاي حول النوتة ها جبي بس كرينا ما جبي بس كرينا ولا علي أختي نقول أمانة أيه dadka dhan wallahi ma sha Allah waa adeeganayna ayay maanta waartiin ayay jabi baa laga dhigayaa jabi baa laga dhigo hooyo jabi baa laga dhigo ya kulli jabi baa ayay calool jilacsantay iska oonaysaa miskiin gabadha maxay ku tiri ma maqlaynino ilaa ku istaagta xataa ha he waxay ku tiri maxaa iiga maseersiinayaan hooyaday ma joogtay miskiin wallahi ka xumahay marka saxaabta khayr aan ugu duceynay khayr iyo barako aan ugu duceynay iyo waxay jecel yihiin iyo waxay jecel yihiin qalbigooda iyo qulubtooda ku jirto qof walba qalbigiisa waxba ku jira moogtay dadku isku qalbi ma ahe ha muraadkooda Allah u yeelo aniga ilaahay muraadkii haysa adigana Allah kuu sahlo meeshaad ka oomantay Allah kaa waraayo amiin nasrisoor Allah kuu kala kiciyo jabiib iska dhig jabiib waxay noo tahay saaka aroor hadda markaa meeshaan ka dhamaano ani ayay waxaa aadeynaa jiimka insha Allah dhammaan dadka dhahaaya ayay aan ka faa'iideysanay ayay farxadeeda u baahnay YouTube soo gali waa aragtiin insha Allah barnaamijyo kale oo kala gedisan ayaan idin soo wadnaa barnaamijyadaasi ayaa waxa ay noqon doonaan cuntooyin kala gedisan barnaamijka nolosha barnaamijka waxtarka bulshada iyo waxyaabo badan oo bulshada wax ka faa'iideysan doonaan barnaamijka waanada iyo kala faa'iideysiga muhiimka u ah bulshada haddaan la kala faa'iideysan waxyaabo badan ma shaqeynayaan sidoo kale in la iscaawiyo oo la isdirigeliyo oo waxyaabo badan la iska waaniyo ayaa muhiim ah insha Allah showgeena waxaan kusoo qaadan doonaa waxyaabo badan aan sidii kara bulshada waxyaabo badan ayay u taraayaan sidoo kale codsiyada ka imaanayo asxaabteeda Snapchat-ka markasta ay la socdaan oo dhahayaan asraayantan barnaamijka nolosha waa ka mashquulshay insha Allah programyo noocyo badan leh ayaan kusoo qaadan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo programyadaas ayaa waxay noqon doonaa mid dad badan lagu soo invite gareyn doono ama lagu casuumi doono oo sidii bulshadeena ay ku horumar lahayd bulsho kasta waxay ku horumaraysaa marka la isku hadlo wax kasta oo laga hadlo waxay rajo u muujinaysaa dhalinyaro badan oo waxyaabo badan ku fikiraayo muhiimadda nasr soo markaa aasaya ayaa waxay ahayd in la isku dhiirigeliyo in wax la kala barto in wax badan la kala faa'iideysto cunto karinta kaliya maahan waxaa muhiim ah in wax badan laga wada hadlo markii wax laga wada hadlo ayay qofka bini'aadanka uu horumar gaari karaa marka insha Allah
snapchatkeyga ayay maalin kasta dadka way dhiirigelisaa waxyaaba badan oo wacyigelin bulshada waxtar u laha ay ka hadashaa. taas ayaana igu qaliftay in Nasri Som aan usoo bandhigo dadka aan is dhihi karo wax badan ay ka faa'iideysan karaan. marka wax wanaagsan laga hadlo ay bulshada wax badan ay faa'iidayaan. marka muhiimada waxay tahay in la is dhiirigeliyo qof walba wuxuu ku fiican yahay inuu ka hadlo waa muhiim si loo helo bulsho qurux badan oo u aragto wax kasta oo wanaag ah. marka haddaan isku hadlin ama la is dhiirigelin horumar lama gaarayo. dhalinyarada koreysa ama dhalinyarada wax qabad kale ama wax barteen ama fikirka wanaagsan waxaa muhiim ah inay dadkooda u hadlaan waxyaabaha wanaagsan ay ka hadlaan si loo helo bulsho nadiif ah horumar gaartay wax qabad badan ku leh bulshadooda. marka insha Allah is dhiirigelino midkaan midka kale ha saacideeyo midkaan midka kale fikirka wanaagsan oo soo bandhigo ma ahan in xaasid la isku noqdo. xaasidnimada waxay dhibaato u keenaysaa naftaada iyo nafta walaalka because adduunyada waa laba beri. waxaa horumar ku gaari kartaa adiga oo qalbi nadiif la yimaada adiga oo caawiyo walaalka ama walaasha si loo helo bulsho wax qabad leh oo adduunyada la tartanto. wadamada waa aragteen dhibaatooyin badan iska jiro qof walba waxaa horumar uu ku gaari karaa dadkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa. marka Soomaaliya waa inay is dhiirigelinaa is caawinaa ma ahan in qofka kale wax ka sheega ama uu maxay ahayd uu ku noqdo xaasid. xaasidnimada dhibaato badan ay keenaysaa waatana dalkeena dhibaato badan inoo ku imaadeen. marka insha Allah Nasri Som waxay noqon doontaa mid ummadda Soomaaliyeed isku keento mid ummadda Soomaaliyeed wax badan u qabato insha Allah. ani ayaa hadda isla socono insha Allah meesha u socono ayaa u soo dhawaanay. waxaan idin rajeynayaa in waxyaabo badan oo bulshada wax qabadka u leh in qof walba uu ka fikiro uuna u soo bandhigo. marka please subscribe channelkeena haddii nagu cusub tahay like share si waxyaabaha cusub aynu soo gelino markasta oo la socotid. barnaamijkana ma noqon doono insha Allah barnaamij hara wuxuu noqon doonaa barnaamij bulshada Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed isku keeno si loo gaaro horumar iyo wanaag. aniga ayeeyo waaye waxaan idinkaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ballanteena waa in wanaagga aan isfarno horumarkana aan ka dhidhino si aan noqono bulsho qurux badan